dhaqankeena Soomaaliyeed marka laga soo tago markii dadku islaayaan bulshadu isbaabi'iso kad iyo kardam la iska dhigo dadkaas maganta soo noqda ee qofka u soo magangelya doonta sida dhaqanku caadiga Soomaaliyeed yahay cunta la siiyaa waa la wanaajiyaa waa la dajiyaa haddii birtu ku qoyan tahay xataa qofkaas waxay tina lama gaarsiiyo sida caadiga waxay tahay mid ka hoos baxday in maadaama aan magangelyo u soo doontay in maadaama aan magaceeda ku soo hoos dhuuntay maadaama aan ayadii ka dhiganay difaac inay dhanka xun isla markiiba fiidinta soo gasho ay soo tiraahdo oo isla markiiba ani iga soo daba hadasho waxa ka qurux badan inay tiraahdo wiilka hal la ii daayo sharaf iyo ciise buu mudan yahay arrintaasna way dhamaatay anna waa ka soo hadlay asna waxa weeye si sharafan buu iga soo hadlay marka hawsha halkaas ku dhamaatay gabadhaas walaashay iyo hawshiisa iyo wiilkaas sida looga dhamaado taasa sharaftu ahay taasna waxa weeye wanaagsan sida qofka wax garanaya ma ka hadlaya si u garay laakiin aniga oo magaceeda ku soo gabaday aniga oo mataqaana fanaanadeeda qaaliga ahayd soo sheegay aniga oo dhan walba ka qanacsanaa aniga oo ay sharaf ii ahayd maanta inaan farxiyo kaba yar magaceeda soo qaato inay isla markii iga soo hadasho tiraahdo video iga soo duubto tiraahdo baba ay xagga ka dhacday isan xalay toole marka anigu leyd bay ii ahayd markaan aan wiilka aan soo weeraray fiidki baan guriga nimca joker isugu nimid aniga iyo dalmar iyo naciimo weliba marti kala badan baan noo joogtay markaasaan ku iri dalmarow naciimo iyo aniga adigu aan live Facebook galno oo ninka inuu qaldan yahay aan faraha ka saarno oo aan la hadalno ka rabaashno waa cambaaraynayna markii hore hayay dhaheen dalmara soo booda marka wuxuu yiri farxiyo aad bay u fiicnaan lahayd ninka inaan ku tufno laakiin wantiran ku sheegahay ninkaasu inuu caan noqdo adduunka ugu jecel yahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبان إذن سلام يا دمان أمد الصوماليات ملك ساجكتان إيسي كستو هذه مغليسان بوا ولكن خضر يلي هذه اللي يهي مالك كلا أو ناكسن مالك كلا أقرح بدل وحن جعلها إنا وناكسنتين أنا جنسي ذاك الأدبان في عنها ما شاء الله حالده هو أسك صدب العيان هول هو أسك بديهين لا يعضها الصعط ورك وأنت اللي طو وحن ما تقصى قلي يعني قو أتشعلا إن أنا شيء كذا سي ودودين ولا فرحية كبيرة فنانة قالقة الله يبارك إن هالكان كإيراه لبا إري شلي waxaan soo duubay video raaligelin ah oo arintii oo dhan aan ku soo afjaray oo aan totally bas aan jeclaysta inaan ku soo gabagabeeyo ma sha Allah dadkii inta badan aqliga lahayd intii wax fahmi kartay intii mataqaana la oran karo waxa weeye bulshada hormuud bay u yihiin way ila qaateen barnaamijkaas way igu soo dhaweeyeen وين يجي مهد عدين أدبنا أقوم مهد علينا يعني أنا دقيقة حان دي لا thank you very much فرحي كبير هل ميد بان لا كلها كفتم يا كفتن كسكو هرت واحد شرفي أما أنا مقام سرائي موتشنايس أما إيه سمين سمعنه إن ما أنت فنان دي وين ده قالي كهيد فنان دي أنت أجير شيء أنا نيجو يتكير أنا جو دي يعني العدي أقون أنت أجير شيء ما أنت إني يبود وضو هرت أنا شرفيت هرت وكذا وأنا إيه فرحت أيضا سكفوا جايب إلى هذا هاي أيضا حاسس هذا هاي لا أيضا حاسس هذا هاي سكريح لكن أنا قررنا هانتي وحن كهالله يمكن to be honest رنت وهالله أنا قصدان أي أساس أي متقنا عن شيء أو ديك سميس وايو ما أنت قفك واحد مقع لك هذا استحقف مقع لك هذا ما أنت قف مسؤول أو برشة واحد مسؤول وهي أو أغنيها أنا واحد له واحد أنا هذا قف شيخ أو ما أنت واحد برشة كده يتو هذا الكسمير الجارية يجي قف فنان أما أبوان وحدنا بها هذا قف برشة وعيقل انتودا لك هذا عانوا مركي لهذا هاي إنه عان يقول هذه ربا خضر إنه سان يلو ربا وحان هبا أو أنا لك قاعدين إياه إنا بسيداس أدوك إسكريح بقى لهذا هاي بسيداس شير أو ديقو سميسي سيداس ما أدوك متقانا مقع قرح بدن إيقو سميسي مقع انت بإيبه شرف بيتها إن متقانا فنانة دي لغالك عيبود وضو شرف bay tahay inay soo magacaawdo sharaf bay tahay in aan intaan soo qaatay ayadu iska riixayso ay leedahay ilaa waxa weey qadar ilama soo xirinaysa sanamiyeen muhiim ma aha inaan maanta farxi ka yar waco aan iraahdo arrintaas ka soo hadlaya saasaan sameynaya raaligelin baan bixinaya muhiim ah muhiimadu waxa ay sameynaysa aniga markay iga soo hadasho markay video ayada ay leedahay ay baraha bulshada ku soo faafiso oo ay tiraahdo ninkaas waxaas lagu sameeyo sidaas ha la yeelo waxa weeye intaas waa magacayo filanaan runta markaa ma sha Allah qofka markay maradu ka dhacdo
sida caadiga waxaan doonaa maan dhahan anigu waxaan rabaa aan liqoorto aan aamuso laakiin markaan idin ani maradii baa iga dhacday daar baa igu soo duntay hawshu ay igu adkaatay raalligelin hala bixiyay gacmahaan taagtay dadkii aan u soo gabaday ee aan magacooda kusoo gabaday waxaa ka mid ahaa farxiyo kabaya walaashay farxiyo mara fanaanadeeda qaaliga magaceeda marka aan soo qaatayna waxay iga ahayd inaan yacni bulshada isaga difaacay in dad wanaagsan ila soo xiriireen oo yacni kacdoonka markaa jiraan ku daminayay si loo yiraahdo anoo magaceeda kor u qaaday maadaama ay igooda waday waxaan yidhi dad badan ila soo xiriiray sidaas ayaana magacaaga ugu soo daray meesha dhaqankeena soomaaliyeed marka laga soo tago markii dadku islaayaan bulshadu isbaabi'iso kad iyo kardamal iska dhigo dadkaas maganta soo noqda ee qofka u soo magangelya doonta sida dhaqanku caadiga soomaaliyeed yahay cuntaa la siiyaa waa la wanaajiyaa waa la dejiyaa haddii birtu kuu qoyan tahay xataa qofkaas wax xigtina lama gaarsiiyo sida caadiga midda ka hoos baxday baa waxay tahay marka walaasha farxiyo mara fanaanadeeda qaaliga aan jeclahay waxay tahay midda ka hoos baxday in maadaama aan magangelyo usoo doontay in maadaama aan magaceeda kusoo hoos dhuuntay maadaama aan ayadii ka dhiganayo difaac inay dhanka xun isla markiiba fiidinta soo gasho ay woo soo tiraahdo oo isla markiiba ani iga soo daba hadasho waxa ka qurux badan inay tiraahdo wiilka ha la ii daayo sharaf iyo ciisi buu mudan yahay arrintaasna way dhammaatay anna waa ka soo hadlay asna waxa weeye si sharafan buu iga soo hadlay marka hawsha halkaas ku dhammaatay gabadhaas walaashay iyo hawshiisan iyo wiilkaas sida ha looga dhammaado taasaa sharaftu ahayd taasaa waxa weeye wanaagsaneed sida qofka wax garanaya ma ka hadlaya si u garay laakiin aniga oo magaceeda kusoo gabaday aniga oo mataqaana fanaanadeeda qaaliga ahayd soo sheegay aniga oo dhan walba ka qanacsanaa aniga oo ay sharaf ii ahayd maanta inaan farxiyo kaba yar magaceeda soo qaato inay isla markii iga soo hadasho tiraahdo fiideo iga soo duubto ay tiraahdo baba iyo xagga ka dhacday isan fanaanadeeda waa tahay waa ku jecelahay baraha bulshada waxyaalaha aad ii soo marinaysid aniga wax dhaawac ima geysanayaane magacayga ayaad ilaa hadda sii weyneynaysaa oo sii laba jabaaraysaa waana maanta bulsho cusub iyo dad cusub baana isii baraysaa farxiyo maasha allah wallaahi baa wax yar waxmaana ku qaaday maanta hadda anta xataa aan isku nimaano halkaan aanu feer isu duubano laba nin baynu nahay ximiyaha masasa dhahnaa inaan waxa dhiba aana kaa dareemeyn maasha allah waxaa ku soo hartay arrinta ah magangelyada qofka hadduu kuu soo magangadu gacmaha taago oo yiraahdo arrintan waxa weeye qofkaas oo qofkaasna saas waaye ha laga dhammeeyo dee in wax loo sii wadoodo aan garanaayo soomaali weyn soomaaliya marka waxa weeye iska daaya dad baa waxa weeye islaaya dad baa gabdhaha yaryara oo 3 jir ah kufsada yacni waxyaalaha dunida ka dhacaya anigu qof ma dilin qof ma dhaawicin arrin socotay baan duuduub u liqay raaligelin baana ka baxshay waana ka dabaashay inaad sii wadwadaan ay xagxagataan mataqaanaa jiidaan dee micno ii samayn maysa idin kale macna idin samaysa yani xigmadda idin kaga dhammaanaysa calaa iyo xaal gabagabadii dhalinyarada kale oo isoo wadwada oo isheeg wadwada waxaan leeyahay hawlihiina iska wata saaxiibkii shiine culo uu kow ka yahay shiine waxaan leeyahay shiine walaal qaali aad baa umahadsan tahay arrinta sida aad moodeyna way ka fog tahay baasaboor iyo arrimaha iyo nin gurigiis inaad ka sheekaysidna dee waa ku maangaabnimo sida xaqiiqda ah bowda rag maalinba mid baa bannaan arrinta sida aad ku wada ka jooji rag waxa weeye inuu isku tunto oo guryaha hoose loo dhaco anu maanta gurigaaga inta soo gala kama sheekayn karee xoogaa bal haddaa biriis xataa iga raadinaysid si qurux badan wax u raadiyo iga deji bahasha ilaahay ceebtana haasturo aakhir iyo adduun markay xaaladda kugu xumaato sidaa kale xaalka u bahalkiyoobo ilaahay xaggiisa loo cararaa qofka mu'minka ah dhibban walaalka ah iska rafaasana laguma tiiqtiiqsado ama laguma tiiqtiiqsado ama laguma digto sida xaqiiqda ah qofka dhibka adduunka ku marana waa qofka mu'minka sida xaqiiqda ah masha allah tabaaraka allah inta anigaan ka ogahay weligii qof ma dulmin weligii qof ma xumayn waxa hadda socdana si kasta iyo waxa weeye shaydaan ha ii qurxiyo wax kasta hoose ha ku dhacaane waxa weeye dhabarkaan saartay waana qaatay walaashayna waa wada hadalnay waan iscafinay arrintaasna sidaasay ku dhammaatay soomaali weynay ha iscaabeynina oo idinka hawsha ha sii ballaarinina way dhammaatay hawshaas iska gabagabeeya dadka wanaagsan ee taageerayna waxaan leeyahay abaal bir ah abaal buur ah abaal bad iyo dheeraada nin bilada aniga iigu maqan beerka ka ogsooni inta wanaagsan ee wanaagga igu taageertay waxaan leeyahay waa idin jeclahay ilaahay ha idin sharfo ilaahay ha idin ciseeyo
waxay sharaftu iyo karaamada iyo kalgacalka aad ii haysaan waad ku mahadsantihiin inta ay dhinac martay inay mataqaana arrintan si ilaah garasho leh damiir le ay mataqaana u falanqeeyaanna waxaan leeyahay arrintan waa ceel dheer oo u baahan biyaha ku jira yacni raqaska hoose ee biyuhu markay ceel ku jiraan ama ay baraa ku jiraan inta kore waa nadiif inta hoosena waa raqas waxaa la yidhahdaa biyaha dhoobadii noqday oo wasakhoobay oo yacni bahalkiisan inta la kala saarayo biyahaas raqaska iyo biyaha nadiifta ana waqti bay qaadanaysaa marka waxaan leeyahay arrintan sida aad u soo xiray aan u duuduubno sida aan usoo gabagabeeyey aan uga dhammaano maantoo dhan in la warramo oo la sheekeeyo khadar baa hebelow saan yeelayo khadar baa xaggan ka dhacay wax micno ma samaynayso waxaa micno inoo samaynaya aan iscafino biniaadanku waa khaldamaa wax waara ka dhex dhacaan xataa haddii aanan khaladka lahayn aniga la iga khaldan yahay anaa qaatay waan idin maxaa marka idin dhibay idin maxaa waar dhacay meesha keenay maxaa habaar meesha keenay marka insha allah waxa weye arrintan inay sii dheeraato ma doonayo aniga fahimo waa iscafinay cafi aliyo masaabac isku afgaranay cafi aliyo masaabac meel loo dhaafa ma jirto annagii haddaan iscafinay idinkii waxaad wax u wadama meesha ma garanayo idinkii waxaad u habaartantaan ma garanayo arrinta farxiyo markaan usoo laabto waxay tiri farxiyo shalay wuxuu arkay bay tiri markaan iri committeega laga yareeyo lifeta dislike hala saaro hala subscribe hala saaro subscribe ha lagala noqon bakiti wallahi subscribe baa lagala noqonaya iska daaya wax ii siyaadin ma ahan wax hoos iga dhacay wallahi aan arag to be honest waxaan aaminsanahay kor u soo cadaama dareemayaaba marka share out aan abaal kuugu hayn farxiyo inta ii samayn lahayd arrinta aan asiga faraha uga baxay balaqaata nin gurigiisa inaan ka sheekaysin waxa weeye adoo fanaanad Soomaaliyeed adoo fanaanad qaran ah adiga oo yaa magac dheer bulshada ku dhexlay inaad wiil yar oo walaalkaaga maanta hadba meel ku xagatid wax micna ma samaynayso runtii fanaanadeeda waa tahay sharaf ay tahay in ay wadoodid sharaf ay tahay in ay iga sheekaysid sharaf ay tahay xumaan iyo samaanba in aniga ma taqaana wax iga sheegtid taasaaba sharaf igu filan waayo maanta markaan iraahdo maanta markuu Sheekh Mustafa iga soo hadlo waxaan dareemayaa Sheekh Mustafa markuu iga hadlo maanta qof bulshada ka sheegan baana markuu maanta iga soo hadlo aqoonyahan samatar oo kale iga soo hadlo bulshadii baan ka dhex muuqanaya waa qof hadal soo dhageysanaya maanta markuu fanaaniinta waaweyn mid ka mid iga soo hadlo Xasan Ali Samatar maanta iga soo hadlo weli magacaygu way si siyaadiyo wax waxba iga dhumayaan dad wajiye cusub iyo dad hor la isii baranaya marka inta share oo bila abaala ii samayn lahayd arrintan wanaageed aan ku daboolo gacmo gal jirna hoos baa loo dhaqaa farxiyooy boodaragna maalin mid baa qaawan yaa la isku tiigsan oo la isku tiiqtiiqsan magac dheeradan yaa la soo adeegsan wanaagii kalgacal baan ku hayaa fanaanadeedii qaaliga ahayd baa tahay dhammaantiin waan salaamayaa bulshada Soomaaliyeed hawshan soo afshirmatay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.